shacabka magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee barxadda ee magaalada Garowe waxa ay shacabku aad uga soo horjeedeen daandaansiga qaawan ee wado maamulka la magac baxay Somaliland waxay taageereen ciidamada difaaca ee Puntland waxay sheegeen in la gaaray waqtigii ciidamada Puntland ay gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran waxayna sheegeen inay taageerayaan ciidanka ayagoo fariin kulul u diray maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliya maxamuud xalliyo dibadbaxaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya dadka isugu soo baxay barxadda weyn ee bartamaha magaalada caasimadda ah ee Garowe ayaa ku dhawaaqay ereyo ay ku dhiirigelinayaan ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka la galay Malaysia ka tirsan maamulka la magac baxay Somaliland oo maalmihii dhow soo farageliyay xuduudaha Puntland ee dhinaca waqooyi shacabka goobtan isugu soo baxay oo la hadlay Puntland TV ayaa sidan dareenkooda u cabiray waxaan muujinayaa shucuurtayda maamulka Somaliland ay ku hayso deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ku hayso shacabka halka degan hagardaamada iyo lugooyada dhulkooda ay ku hayso waa dhul Puntland annaga iska leh waxaan u sheegaynaa Somaliland waxaan u sheegaynaa casharka shabaab u dhignay Somaliland inaa jidda hore ugu dhigi doono waxaanu ka mudaharaadaynaa maantay oo aanu halkaan isugu soo baxnay gardarrada Somaliland ay ka wado gobolada Puntland mana dooni doono dalka yaga hanooga baxdo sanaaduuqda ay wataan kuma jirno dhalasho ma wadaagno dal ma wadaagno nabadgelyo ilaahay hanaga baxaan allahu akbar hadii kale waa ku jahaadeen ciidamada Puntland baa difaacaya wadanka wax dhibana ma jiraan waana la qabanayaa meel kasta cid kasta oo xuduudda Puntland ku soo difaacada waa la difaacaya حسن محمد عيسى قدوميها دقمة Garowe ahna قدوميها ururka algabal ay ku midaysan yihiin guud ahaan degmooyinka Puntland ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulka magaalada caasimadda ah ee Garowe ay taageero buuxda la garab taagan yihiin ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan xuduudaha isla markaana ay heegan xoogan ugu jiraan ka hortagga falalka dhul ballaarsiga ah ee maamulka Hargeysa gudoomiyaha ayaa sheegay in cawaaqib xumo maamulkaasi uu kala kulmi doono daandaansiga dagaal ay xilligan soo cusboonaysiiyeen anigu duqa caasimadda Puntland ahna gudoomiyaha algabal ururka ay ku midaysan yihiin degmooyinka 47 ah ee Puntland waaqa aan diraya maanta waxa weeye weerarka lagu soo qaaday Puntland oo goboladiisa maaragtay xuduudaha Somaliland xiga laga soo qaaday Somaliland ku soo qaaday oo gardarrada qaawan ah weerarkaas in la joojiyo arinta inay maaragtay dib uga noqdaan haatan waxa weeye Puntland waxay leedahay ciidan ku filan si rasmi ah isu difaacaysa ciidamada hadda ku sii socda ama maaragtay furimaha dhan ku sii socda iyo diyaar garowga la wado oo xooga badan waxa weeye waa mid in dalka lagu difaaco maaragtay loogu talagalay hadda waxa weeye wixii ka dhasha iyo natiijada ka dhalata cidii duulaanka soo qaaday baa maaragtay mas'uuliyadda xambaari doonta Puntland dhawaan bay ahayd inta dalkeeda lagu soo duulay way 10 bixisay sidii la og yahay haddana 10 bay bixin doontaa hadii alla idmo boqolaal dad oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Garowe ayaa isugu soo baxay goobtan waxaana ay dadka muujinayeen dareenkooda ku aadan duulaanka ciidamada maamulka Somaliland ay ku soo qaadeen deegaano kamid ah gobolka Sanaag waxaana ay sidoo kale ay muujinayeen caawimaad ay la garab taagan yihiin ciidamada Puntland oo iyagu doonaya inay guulo ka soo hayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada maamulka Somaliland oo iyagu duulaan daandaansi dagaal ah isla markaana laga fiirsan ku soo qaaday deegaano kamid ah gobolka Sool maxamuud xalliye Puntland TV Garowe